وإذن سلامي يا إخواني وأخواتي. إلهي سبحانه وتعالى وحجري ومن يهن الله فما له من مكرم. إلهي قفو الدليو قف كرامي كراه مجران. waxaan aragnaa nin dulloobay, ninkan ciro la yiraahdo oo isku dhiibay nimanka ilaahay ugu carooday oo carada ilaahay ku dhacday oo ilaahay nacladay. waxaad arkayseen maalin dhaweed ayagoo u dhiibaya calaamadda diintooda. waxaa hubaal ah ninkaasu inuu isku dhiibay oo nimanka isku dhiibay. wax isugu dhiibay lama yaqaan iyo wax sharaf uu ka helayo. waxyaalihii laga dhigan jiray marmarsiyaha Soomaali nacaybka, Soomaali iska goynta ayaa waxay la gashay meeshaas xun. laakiin tan hadda way ka daran tahay wixii la sheegi jiray. tan waa diin ka bax weeyaan oo loo jeedo dadkiina wuu duufsaday. in badan ayuu kolley marin habaabiyey. laakiin dhibka jira waxaa waaye dadka Soomaaliyeed oo meeshaas degan ayay u taallaa waxa berrina la weydiinayo, oo qof walba markuu dhinto iyo markuu ilaahay hortago wax laga weydiin doono waa ayaga. culummada waa idiin sheegtay, laakiin wax sheeg keliya ma tirayo. waxaa loo baahan yahay man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fain lam yastadi' fabilisaanihi fain lam yastadi' fabiqalbihi wadhalika adcafu liimaan alayhi. ilaahay uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yiri, qofku markuu munkar arko gacantiisa ku reebo. hadduusan ku reebi karin afka ha ku reebo, hadduusan ku reebi karinna niyadda ha ka naco. waa meesha ugu daciifsan. sida ujeeda waxaa muuqata in uu isku dhiibay, wax walbana u qaatay, diintana xataa u qaatay, diintoodiina u qaatay. sababtoo ah inaad afka ka tiraahdo waxaa caddayn u ah waxaad samaynaysid. haddaad maaragtay diintoodii aad qaadatay oo waxay qorteen aad la qaadatay, haddaad magaaladii xaramkii ilaahay aad u aqoonsatay inay iyagu leeyihiin, haddaad isku dhiibtay, hadday wax kasta kaa samaynayaan, hadday gabdhihii Soomaaliyeed ku cayaarayaan, hadday diinta ku cayaarayaan, waa nasiib daro. macnaheedu waxaa waaye wax kasta oo cadowtinimo ah oo ay samaynayaan waa ku taageersanahay. ilaahay ku caasiyeen waa ku taageersan tahay. xadgudubka ay diinta islaamka iyo nabi maxamed ku sameeyeen waa ku taageersan tahay. macnaha adduunyadii iyo diimihii kale iyo dadyaabo kale ayaa ka cararay oo ka fogaaday. ilaahay ayaa nacladay. aan la arkayaan 5 salaad ku tukan oo lagu nacladaya. macnaheedu waxaa waaye waa la naclaanan tahay. qof walbana wuxuu la soo baxayaa maca man yuxibu. qof walba wuxuu la soo baxayaa macnaha qof walba wuxuu la soo baxayaa waxa maaragtay uu qalbi ku hayo, wuxuu jecel yahay, waxa maaragtay ayuu la soo baxaya. sidaa darteed waxaad arkaysaa ficilada uu samaynayo, oo ninkan uu samaynayo in ay tahay wax maaragtay diinta looga baxay. runtii iyo nasiib darro ku dhacday dadka annaga waxaa na gubaya waxaa weeyaan waxay hadda maanta u tirayaan oo hadda ninkan ay maanta u qabanayaan ninkan ma jirto. ama hadda faa'iido aad ku gaaraysaan iyo darajo aad ku gaaraysaan adduunyo iyo mid aakhiro ma jirto. laakiin waxaa nasiib darro ah annagoo islaama, annagoo Soomaali ah, waxaa la yidhi fartaa xumo filfil kaaga martaa la yidhi. gacantaada oo nijaasaynisana dee iskama jari kartid. wayna nijaaseeyeen
wuuna nijaaseeyey runtii magacanagii ayuu dilay. sababta hadduu maanta ummad kale ahaa lahay ama diin kale ahaa lahay ama qowmiyad kale ahaa lahay ama aanan shuqul isku lahayn, waxuu rabo ha sheegto, diintuu rabo ha qaato, wuxuu rabo ha soo dhaweysto, dee xanuun naguma haysan. laakiin dalku waa dalkii Soomaaliyeed, dadku waa dadkii Soomaaliyeed, diintu waa diintii Islaamka, magacu waa magacanagii. meel kaste qayb ka mid ah hadday wax samayso annaga ayayna taabanaysaa. waxa aan samaynayn adduunka iyo dunida kale ma kala taqaano. waxa asagu samaynayo dee dad kale wax u malaynayaan inaan annagu aan samaynayn. runtii waa nasiib daro iyadoo maanta la joogo xaaladda meesha marayso. wadamada islaamka, dalka islaamka sidii loo dhibaataynayo, xumaanta ay ku tageen, aakhiru zamaankii la taagan yahay in la isku dhiibo diinta oo diinta laga baxo, waa nasiib daro. marka waxay u taallaa dadka Soomaaliyeed inta wanaagsan ee meeshaas joogta, dadka sharafta leh, iimaan ku jiro, ayaa loo baahan yahay inay gacanta qabtaan dhibaatada iyo xumaanta uu ku hayo dalkanagi iyo dadkanagi uu ku dulaynayo, inay ka qabtaan. adinka idin taallaa, adinka ayaa kow ay waajib idinku tahay, oo gacanta koobaad adinka ay waajib idinku tahay. kolley waxaa weeyaan maanta waa maalin adduunyo, berrina waa aakhiro, laakiin wax sharaf ah oo lagu gaarayo ma jirto. waduu low tudhinuun fayudhinuun. qofku macnaha waxay jecel yihiin inaad usoo dhawaataan adinkiisu. wala tajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu lyahuud. dadka ugu cadowsan oo ilaahay noo sheegay ugu neceb dadka diintan islaamka iyo iimaanka leh, dadka ugu jecel ugu neceb waa yuhuudda. dadka ugu dhow markay noqoto diimaha kale macnaha ugu naxariis badan xagga waa kiristaanka la yidhi. marka ilaahay ayaa noo sheegay cadaawada iyo xumaanta maanta adiga kuma soo dhawaysanayaan, inay ku jecel yihiin, inay isku diin tihiin, inay isku dad tihiin, isku dhaqan tihiin, inaad dadka uga sokeydaan. Soomaalida kale ugama sokeydaan, laakiin waa danaysi, waa lagu danaysanayaa. waxaa la rabaa in laga dhigto aalad la adeegsado oo maaragta lagugu fushado. marka waa nasiib daro, waa xumaan, waa fasahaad, waa diinka baxyo. macnaha dadka Soomaaliyeed iyo dadka meeshaas jooga idin tala waajib ay idinku tahay inaad ka hortagtaan, aad gacanta qabataan, inaad joojisaan munkarkaasna, aad joojisaan. dadka Soomaaliyeed haddaad janno rabtaan, haddaad wanaag rabtaan, haddaad ajar rabtaan, halkaas ayuu jiraa. haddaad ajar rabtaan, halkaas waa waajib oo fardu cayna oo qof walba saaran inuu ka hortago ciro iyo habdhaqankiisa iyo waxa uu wato iyo imaaraadkiisa iyo qashinka iyo shaydaankiisa. waa in laga hortagaa. dadka Soomaaliyeed waxaa waaye fitno ka cabsada aan ku dhici doonin qofka sameeye keligiis, adinkeeda ka mid ah. wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. salaam.